Daniel Kish waa nin Maraykan oo ku nool California. Waxa uu dhashay sanadii 1966. Markuu san jirsaday ayaa waxa indhaha kaga dhacay kansar, taasoo keentay inay indho la'aan ku dhacdo oo uusan waxba arag. Laakiin ninkan indhoolka ayaa u baahnayn in la caawiyo. Waxa uu awood u leeyahay in magaalada meesha uu rabo ka aado. Xataa waxa uu awood u leeyahay inuu garto waxa ka hor yimaada geedba ama darbiba oo uu kala sooci karo kadibna ka leexan karo. haddaba awooddaas cajiibka oo ninkaas indhoolka ahi leeyahay maxay tahay? Ninkan ayaa awoodiisa daraaddeed waxaa loo bixiyay Batman ama ninkii fiidmeerta ahaa. Sababtoo ah tekniigaas uu adeegsanayo waxa adeegsata shimbirta fiidmeerta. Shimbirtan ayaa waxa ay ugaarsataa habeenkii. Mugdiga habeenkii daraaddiis ayaa waxa ay samaysaa qaab kale oo ay ku ogaan karto waxa ku xeeran. Shimbirtan ayaa waxa ay samaysaa cod aysan dadku maqli karin. Codkaas marka ay geed ama wax kale ku dhacdo, qaybtiis ayaa soo laabanaysa. Markaas ay fiidmeertu ka leexanaysaa geedkaas oo ku dhicmayso. haddii sanu codku soo laaban, macnaheedu waxa weeye wadadu waa furan tahay oo jidka wax ma hortaagna. Shimbiro kale ayaa iyaguna isticmaala arrintan, waxaana loo yaqaanaa echolocation. haddaba ninkan Daniel Kish ayaa waxa uu carabkiisa ku sameeyaa cod. dhawaaqa codkaas haddii uu gidaar ku dhaco, qaybtiis ayaa dhegtiisa ku soo laabanaysa. Markaas ayuu waxa uu fahmayaa inuu ka horeeyo gidaar. Hatta waxa uu sheegay inuu kala garan karo waxa ka horeeya ma geed mise waa gidaar, sababtoo ah codka ay labadoodu soo celiyaan isku mid maaha. Hatta wuxuu awood u yeeshay inuu wado baaskiil isagoo isticmaalaya tekniigan. Laakiin waxa uu sheegay markii uu magaalada u baxayo inuu ul qaato si uu dareemo waxyaalaha dhulka yaalla si uusan ugu kufin. Ninkan ayaa wuxuu sheegay inuu maqalkiisa uusan dadka ka fiicnayn, laakiin uu dhagihiisa ku tababaray inay codkaas dhageystaan. sidaas darteed waxa uu furay meel dadka indhoolka ah lagu tababaro si ay maqalkooda uga faa'iideystaan oo aysan ugu tiirsanaan lahayn dadka kale oo ay hawlahooda keligood u qabsadaan. awoodda uu ninkan u leeyahay inuu dhagihiisa wax ku arko ayaa waxa ay u sahashay inuu markii uu rabo uu magaalada ka soo adeegto isagoo aan cidi wehelin, hadhowna gurigiisa ku soo laabto isagoon ka lumin.